السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا سلام يا أصحاب تيدا لما كحرن يوتيوب كيجا فردوس تساني وحنا أدبر كم هالعلينا يا أصحاب تيدي أهل كيجي شلي سيدا يبربر استاجن وحنا يرقفك عنكم هالعلينين طيب أنت بدنا ما مهالعليو قفكي كم هالعليا أنت يروى الله بديا أيو إلى هيدي قفكي كوكفرينا واللجوء عقاب درن مركا وحنا مهالعلينا يا أنت يريد عن هلاي ومنا يرى أنتي ساعد جذه أصحابتي أهل كي بربر استاجتي وحنا أنت يا إنك بدنا وانا ذي كفرديا مركا وان أد بلدي كم هالعلينا يا آدي يا آد ما أنت وحايلا فرديدا وإيجام مقنع شلي قرب كيجي مدي ذهبوا دين بلاس oo maanta iyadoo si soo xaadirsay habe maxaad ku oran channelka cusub shalay adoo ma qabaano ku yaacday ma doonaynin laakiin in laga horfuro saxaan noqotay way dhacday ma sha Allah mashquulka aad mashquulsanay aad baan ugu faraxsanahay asxaabtu waxaan idin leeyahay soo dhawaada aad bad mahadsantiin sida dhaqsaha aad noogu waxayseen waxaan idinka rajaynaynaa hadduu videogeena idin soo gaaro insha Allah wuu idin soo gaari doonaa inaad caafimaad ku daawan doontiin waxaan rajaynayaa dhammaantiin like comment share inaad nagal baqli doonin insha Allah biidnillahi alkariim asxaabta soo dhawaada idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin ma sha Allah tabarakallah aad baad mahadsantahay dahabo maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah biidnillah barnaamijyadeennii aan ku ballan qaaday waxay ahayd wacyiga gabdhaha Soomaaliyeed marka waxaan ku jirnaa barnaamijkaas oo ah wacyiga gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ka bilaabi doonaa maanta waxa ay in badan hablihii Soomaaliyeed ku hoobanayaan waana ka raali gelinaya aniga asxaabteeda dahabo inaad aragteen karo wiilasha oo badan laakiin wiilasha laftigoodu walaalay leeyihiin wala hab inan kastaaba inam gabadh buu la dhashay way dhashay marka iyaga laftigoodu waa way jecel yihiin inay wada wanaagsanaadaan marka wiilasha iyo gabdhahaba insha Allah biidnillah barnaamijkeena videogii ugu horeeyay ee aan ku ballan qaaday baa maanta ka hadli doonaa barnaamijkaasi waxa weeyaan adduunkan qof kasta wuxuu raadiyaa lamaane nolosha la wadaaga lamaane uu ku dago raadintii la raadinayay ee laba dariiqo loo kala maraa waxa weeyaan xodxodasho waxaa la yidhahdaa shukaansi ama xodxodasho qaldan ama shukaansi ama xodxodasho toosan markaa ta toosan waxa ay ka hadashay diinteena suuban nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka hadlay inan kasta iyo inan kasta waxay rabaan gabadhuna waxay rabtaa qof ay nolosha la wadaagto oo lamaano ah oo wanaagsan wiilkuna wuxuu rabaa gabadh wanaagsan oo lamaano ah inuu raadiyo laakiin waxa lagu kala raadsanayaa un laba wado marka waxaan u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed waa kee shukaansiga qaldan ama xodxodashada qaldan sida qof walba u yaqaan haddaad aragto wiilka Soomaaliyeed inuu ku weydiinayo waxyaabo badan oo diinta islaamka ka baxsan ama shukaansi qaldan uu ku soo bandhigayo marka waa inaad inantay ka taxadirtaan sababta oo ah lagu kufsan maayo meel la ka soo dhici maysid cidina ka soo ridi mayso idan kaale saacadaadi oo aan dhamaan marka taxadarku wuxuu wanaagsan yahay gabadha Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed gabadhooda maalin walba naxintu ku imanayso marka maanta waxaan bandhigi doonaa insha Allah biidnillah xodxodashada hadduu ninku marka horeba ta qaldan baan ku horeyn doonaa hadduu ninku markaba ka bilaabo inuu ku yiraahdo guri cullaa iyo kaala oo aan cidi ku lamaanayn xitaa wiil kasta waxay yiraahdaan anagu ma wadaadaan nahay inan kasta oo lagu barbaariyay oo ku soo dhashay diinta islaamka wuu fahansan yahay gabadha haday isku ciloobaan in ay shaydaanki saddexaynayo wuu fahansan yahay inta qof kasta way ka dharsay marka wuxuu diidayaa wiilka wanaagsan ee mustaqbal fiican ka raba guri inuu kugu la cilaysto waa qodobka koobaad wiilka wanaagsan ee sheekada ka doonaya ma ogolaanayo inaad u dirto fiidiyo qaawan iyo sawir qaawan si fiican haddii uu wiilka wanaagsan ee guurkiiyo mustaqbalka ka doonaya kuma iskama qariyo familygaaga sax familygaaga hooyada iskama qarinayo aabaha iskama qarinayo walaalada iskama qarinayo ehelkiina iskama qarinayo dhammaan ehelkaaga oo dhan hore inuu u barto doonaya
in isagii la barto kan laakiin waxa qaldan samaynaya uu isqarinaya marka haddaad aragtaan wiil ku idhi ma arki dib inoogu dhig barashada reerka haddaba iska jir haddaba iska jir marka anagu isfahanaa anigu runtii ciddii garanayso ayaa i garanaysa farduus anigu wiilashaan ku badnaa asxaabtayda wiilashay ku badnaayeen maanta wax yarba iga yaqaanaan u malaynaya wiilasha midda labaad anigu waa qalqaali baan ahaa shukaansigana waan ku badnaa marka wuxuu leeyahay dib inoogu dhig reerkii dib baan ka baran doonaa annaga aan isfahano waa runo wuxuu diidayaa in haddii uu matalan mistake berri sameeyo in lasoo qaladaad in markiiba lasoo qabto aad weyn waayo wiilkii guriga imanayay ee ehelkiisii la garanayay ee agtiisii wixii oo dhan la garanayo waxba ma xumaynayo inantii ma fara xumaynayo ma kubsanayo xaaraan kama doonayo laakiin kan ku yidhi may markaad ku tiraahdo waxaan rabaa inaan maanta aynu isu shukaansano guriga iyagii iigu kaali muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa may guriga ma imanayo hebeltagana guri cidla hebel gurigaas meeshaas waa jam halkaa kale waa jam xagga keliya waa qof wuxuu noqonaya dhuumanaya aad weyn laakiin kan sida saxda ah u doonaya dadkaagii asxaabtaadii ehelkaagii inta ku taqaana inta aad jecesho oo dhan buu baranaya intii aad jeceshahay oo dhan ayuu baranaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo sheegay shukaansiga xalaasha ah inaga macallin diinteenaba macallin kale iyo cid kale wax inoo sheegta uma baahninba mana rabnaba markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa qofkii raba in uu guursado ee awoodaya ha guursado guur xalaala kii aan awoodayn laakiin ha iska soomo oo soonkaa loo baneeyey kan markaa kan maxaan nidhay kan shukaansigan qaldan wuxuu rabaa guri cidlaa uu kula tago wuxuu iska qarinayaa faamiligaaga ehelkaaga buu iska qarinayaa wuxuu kaa dalbanayaa waa sawiro qaawan wuxuu kaa dalbanayaa fidiyoya qaawan wuxuu kula soo hadlayaa xiliyo aanay hurdadu aanay munaasib ahayn oo xiliyo dambe ah xiliyadii aad iska ducaysan lahaydeen oo kale kan wanaagsan xilliga la tukanayo wuxuu ku odhanayaa ma tukatay salaada orodo soo tukana way isku soo laaban hadduu telefoonka ala hadlayay marka salaadii kuuma sheegayo markaa shukaansiga qaldanay waxaasaa ka mid a ninka haddaad waxyaabaha ka aragto ka guur laakiin kan salaadaadii ku faraya diintaadii ku faraya kuu ballan qaadaya hadduu adduun helo inaad xashka uu ku geynayo ehelkaaga iyo qaraabadaada wuxuu rabaa inuu xidhiiriyo xijaabkiibuu kaala dardaarmaya awlaad haddii aad heshaan intaydan isba guursan buu kuleeyahay awlaadeena waxaan rabaa inaan diinta islaamka barno oo aynu tarbiyadayno waxaan rabaa qof dabad loo quurayo ma tihid bu xitaa ku odhanaya waxaan rabaa inaad si degdega anigu aad xaaskayga u noqoto intay xumaan iyo shaydaan inaga usoo dhaxayn lahaa maxaa la isu sheegayaa kale 5 sano 6 sano baa sheekaysanaa hebel casho tagnaa isu baxnaa waa habsan markaa guurka iyo shukaansiga ama xodxodashada saxda ahina waa kee waa kan wanaagsan oo dhaqso inuu guursada doonaayo waxa xun ka reebay wixii wanaagsan ku faraya qofku haddaad aragto calaamadaha aad ku aragto oo xijaabkaagii maanta waxaad ugu tagtay anigoo cabaayada xidhan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa dhacay ma qurux badnayd maxaa ku qaawiyey xijaabkaagii mee haddaad maanta u dirto sawir aanu kaaba dalban oo istiraadaha kugu jeclaado dib maxaa dhacay adoo qaawan baa iisoo diray waaba naxaye maxaa kugu dhacay buu ka odhanaya ninkaasaa nin wanaagsan ah haddii maanta aad tiraado hooyaday ama ehelkaygii baa bukana wuxuu ku leeyahay waan soo booqanaynaa wuxuu isqarinaya ma jirto haddii aan adduun helo wuxuu ka fakeraya xitaa inuu ku geeyo xaramka xajka meelahaas ayuu kugula dardaarmayaa markaas runtii waxaa aan hablaha soomaaliyeed kula talin lahaa xitaa wiilka iyadu way bedeli kartaa wiilka yara qaloocan gabadha qaloocan wiilku ma bedeli karo laakiin wiil aniga waxa aan garanayaa wiil aan aad asxaabo ahayn maan ogeyn markii wuxuu cabi jiray khamriga maanta inaan ku idhaahdo kelmada ma aha runtii asxaabtaydu ka mid yahay waa culimada ayuu ka mid yahay maanta hargeysa tabliiqiyiinta markii aan ogaaday khamrigu cabi jiray waan ogaaday muddaan yaraa lahaa qof markaa balwan laysma qarinayo isagu wuxuu isku dayayaa inuu iga qariyo
laakiin markaan arkay oon xaqiiqsaday inuu balwad leeyahay aan weydiiyey waa uu ii sheegay markaan ii sheegay waxaan ku ihi walaalo ani horta waxaan kasoo dad khamri cabba ma kasoo jeedo runtii mana dee ma bahalaynayno waan iska daynayaa waxaan markaa ku dhiirigeliyey haddaa uu yidhiba dee waan iska daynayaa maanta reer buu leeyahay awlaad buu leeyahay iska daa waxaan ku yidhi waayahay wixii aan kugu berber istaagi karaa aan kugu berber istaagaya wuxuu tabliiqiyiinta markiska ayaan ku yidhi orod wuxuu gu yidhi halkaan mara sheekh anaga noo dhawaa oo sheekh ibrahim dheere la idhaahdo ayaan ku yidhi sheekhaas ayaa ka mas-uula sheekhi muxuu ku sameeyey aan u sheegay isagaa ku yidhi u sheeg markaa inaad balwad leedahay rabtidna inaad iska jirto inankii waa toosay ilaahayna waa nagu garab galay hadda culimada waaweyn buu ka mid yahay balwad noocay tahayna ma cuno reerna wuu yeeshay gurina wuu yeeshay awlaadna wuu yeeshay markaa xitaa gabadhu haddii ay isku daydo in ay wanaajiso walaalkaaga yara hadlaysan odhan kari mayna xun laakiin waxaa jira shaydaan baa yara leexinaya markaa kaa shaydaanku inaga leexiyey inama dheeradadi maanta soomaaliyadaaba dee wax yar iska ah markaa taa xitaa haddii ay inantii wanaagsan tahay qofkaasoo kale ajarna way ka helaysaa way soo jiidan kartaa markaa waxaan leeyahay asxaabta barnaamijyadeena halkaasay ka socon doonaa dahabay ma soo xidhna mise waxbaa ku walaalo waxaa waaye sida wixii dhan badaa sheegay maasha allah tabaaraka allah ilaahay waxaan leeyahay hana xafido gabdhaha iyo wiilasha dhammaantiin allah idin xafido waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu